Assalaamu calaykum. Halkan waa Ogaal HD. Maanta waxaan idin wadaa macluumaad kala duwan oo ku saabsan caarada ama caarada. Ku soo dhawaada mawduuceena maanta. In ka badan 43,000 noocyo caaraha ayaa laga helaa adduunka. Intaasoo dhan kaliya tiro yar ayaa la sheegay inay khatar yihiin. In ka yar boqolkiiba hal ayaa mas'uul ka ah dhimashada aadanaha. Dhimashada sababta qaniinyada caarada aad bay dhif u tahay, maadaama xarumaha caafimaadka iyo isbitaalada ay badanaa gacanta ku hayaan noocyo gaar ah oo ka hortaga sunta antitoxinka ah ee lagu tacaalayo qaniinyada caarada. Waxaa jira noocyo caarada ka mid ah oo aad u halis badan, laakiin waxaan halkan idinkugu soo gudbinaynaa 9 nooc ee ugu halista badan caarada. 1. Brown reckless spider. 2. Brazilian wandering spider. 3. Yellow sac spider. 4. Wolf spider. 5. Black widow spider. 6. Brown widow spider. 7. Red widow spider. 8. Red back spider. 9 oo ah midda ugu dambeysa sandy funnel web spider. Funnel web spider waa mid ugu khatarsan dunida. Dhererkeedu wuxuu gaarayaa ilaa iyo 5 cm. Web spiderku badanaa waxay gaaraan ilaa 2 sano. Waxaa kaloo la sheegaa in midda dhediga ah ay ka dheer tahay midka labka ah, waxayna gaartaa ilaa 20 sano. Waxaa jira caaro ka weyn midaan aan hadeer ka soo hadalnay, magaceedana waa Goliath, waana caarada ugu weyn dunida. Goliath cabirkeedu wuxuu gaarayaa ilaa 6 jibaarka caarada loo yaqaano web spiderka, macnaha 6 mar ayuu kasii weyn yahay, waana 30 cm. Culeyskeeduna waa 170 gram, waxaana marka ugu horeysay lagu arkay Koonfurta Amerika. Intaas ayaan jeclaaday inaan idin soo gudbiyo. Intayna markale kulmayno insha Allah, waxaa idinkaga tagayaa sidaa iyo nabadgelyo.